السلام يا ميل كستا يا مالين كستا يدين تهيب دمانتي وعيسريولو يدين له مد كله يا مالين كله يا مر كله برنامجي ديني مد كميدا إنه كو قاعد أديك جرني محاوص محلو بهين هاي القلم مريا كيلو الصعدا حين لجودبول إن بدن أيان يدين كو قايلين فريما وأن بريا قلبي ذو كل دري وأن لا تنتينو برهرجو كعاد وعسى ما طيب موقتا dareenkii aniga shakhsiyan iwadii markii hore keligii in maanta dhammaan ummadda Soomaaliyeed ila qaadatay meel kasto ay joogto aad baan ugu mahadnaqayaa dadka fariimaha qaatay ka soo jawaabay ku dhaqmay sidii ay ahayd u arkay khatarta ku soo socota iyo dhibta ay leedahay waxa anigu aan keligay ka qaylin maanta dhammaanba wax la kala qarinayaa ma jiraan hada si waxaan barnaamijka u share gareeya all iswada gaarsiiya Soomaaliya oo dhan gaarsiiya barnaamijkani wuxuu ku socdaa dawladda Itoobiya federaalka iyo deegaanka Soomaalida waana fariinta dhabta ah ee ka timi guddiga beelaha Isaaq ee degan dhulka la yiraahdo Itoobiya ama dhulka Soomaalida Ethiopia ama idinku magaca doontaan ugu yeedha Hawden Reserve Area ama anigu sidaan u aqaano bariga Ethiopia intaasba idinku ka laale ka doontaan u bixiya ama magaca doontaan ba ugu yeedha waxay xabad ka xigaan xabad anigu idinka turjumi maayo waa Soomaali idin af Soomaaliga taqaanaan iyaga hadalkoodii baan idin dhageysiinayaa iyo heerka ay ka taagan yihiin waxyaabahan la dhoobdhoobay waxay xabad ka xigaan in deegaankooda new police wax leeyada lagu arko maamul ogaadeen leeyahay oo soo magacawday lagu arko wax allaala iyo wax fikrada noocaas ku shaqeynaya lagu arko waxay la tahay deegaanka Soomaalida Ethiopia waa markuu ama saxmi lahaa ama baabi'i lahaa waa labada qodob mido waa markuu ama baabi'i lahaa ama saxmi lahaa inaga Soomaaliya walaalayaal Soomaali baynu islana walaalayaal cadow baayna haysta cadow aan new police ahayn iyo ONLF iyo dadkan ogaadeen isku sheegay ma jiraan Tigreega kaaga sokeeya oo Oromada kaaga sokaysa oo Amxaarada kaaga sokaysa waayo inta midnaba halka heerka ay ogaadeen ku taagan yihiin Amxaaradu ma taagna oo Tigreegu ma taagna oo dadka bini'aadanka oo dhani ma taagna anigu run baan idin sheegay xaqiiqo dhaba baan idin sheegay ama qaata ama ha qaadanina ciidamadii new police ee dhigi cabka ahaa ee maatada iyo caruurta iyo hooyooyinka iyo xoolaha nool rasaasta kullaayay aanu kala aabayeelin ayaa maanta deegaanadeedii iska soo galaya iyadoo aan gacan ku dhiiglayaashii la xukumin lala xisaabtamin maxkamad la soo taagin maanta mar labaad iskaga ka soo noqonaya sida xoolaha waa aqli nin liita uu qaato way
وعقلي ونلي تاقاته وعيلتاي doqonun baa taas oo kale asmacaysa ama qaadanaysa odayaashu meel adag bay ka istaageen fariinta dadkooda ay fareena waa mid fulaysa ana waan ku sii xoojinaya waxaan idin leeyahay hubkiinu diyaar haydin ahaado xaafadihiina hubku haydin yeelo marka aad aragtaan new police wax la yiraahdo waa inaad ka argoosataan dadkiinii maqnaa eheladiinii la laayay ee aan gar iyo garawshiyo midna la idinka ogolaan ilaa iyo iminka waa in dhiigoodii dhiig kale u baxa weey aqligal ma aha mana dhacayso Soomaali baynu walaalayaalnahay inaga wax wada hagaajisanayna lagu danaysto marka danteeda la gaarana hadhowto sidii la doono laga yaabo wax Soomaalinimo leeyahay aynu aqbalayna ma jirto Ethiopian baynu nahay inagu ninka ogol ee inalle Ethiopian baynu nahay ee Ethiopianimada aynu raacno soo dhaweeyo okay dha waayo dalku waa Ethiopia meesha aynu ka wada tirsanahay waa Ethiopia oo neef waxay noqotay Ethiopian sharciga Ethiopia hoos joogtaa maanta laakiin inay haddana inaga inagu beer laxawsato Soomaali baynu isla nahay waa waxaan waxba ka jirin weey waxaynu u simanahay sharciga Ethiopia dhamaanteedba inanka Tigreega ee koonaa kala jooga iyo inanka Soomaaliga ee xarshiye gaashaama jooga labaduba sharciga Ethiopia bay hoos joogaan kaasun baana maamula ma jiro sharciga Ethiopia sharci kale ka hooseeya ma jiro oo la yiraahdo sharciga Soomaalida miyuu jiraa miyaad aragteen sharciga Soomaalida Ethiopia meel ku qoran yahay miyaad aragteen sharci kale oo Ethiopia ka hooseeya waxa laalaya wax ka jira ma jira yaana daba la idinku beer la xawsani Soomaali baynu nahay iyo Soomaali baa sidana iyo Soomaali baa tana shaar la xidho oo lagu adeegsado shaar adiga lagu adeegsado inta la xidho maalinta dan la leeyahay tolay Soomaaliye tolay abdi baa xidhan tolay tan tolay dadkaygii baa dhintay maxaa lagu oran waayay tolay dadkaagii dhintay meeye maxaa loo oran waayay aqliga iyo cilmigu waa inuu shaqeeyo way aad baan ugu mahadnaqayaa odayaashan gartay waajibkoodii iyo dadkooda xaq ka maqan waxa uu yahay baladaba waxaynu dhageysanaynaa baaqa iyo fariinta Ethiopia u direen iyagu lama hadlayaan cagjar iyo wax yar oo hoose iyo maamulka jigjige iyo waxa lama hadlayaan waayo laba mid baa naga dhaxaysa kuwa waxa naga dhaxaysa inay ogolaadaan in Soomaaliya wax wada leedahay oo dhulku Soomaali yahay laakiin intay ogaadeen iyo ku marmarsiyoonayaan intay ONLF iga dhigayaan inay mujaahidiin tahay inta ay sharci darro iyo qawaaniin darro Ethiopia ay wadaan hoostana dadka ka leeyihiin Soomaali baynu nahay Soomaali xaqana Ethiopia kala heshiinayaan ma yeelayo mana aqbalayo anoo tii weyneyd arkaya inaan mid yar oo ilmo yar hor fadhiyo oo reero iyo fikir reereed ku shaqeeya inaan la dhiil gareeyo marnaba lagama yaabo iyo saacadnaba lagama yaabo okay go'aanka ay odayaashu soo saareen muxuu yahay si waxaan u dhageystay الدستور الفيدرالي أن كشري يمكن عن الديلياشة أن دون اليوم لسه إن محكمة السود كانوا والجزائر وضع مريم إن ما أنت السود اليوم كل كيشتنات خاصة نمكي السابق والتكلم وحنولانا وأن رئيس الوزراء دولة إثيوبيا كبورينا إن أننا أقولين إن عيدنك دولك ودكية أي إساق إثيوبيا كل كشنات إن أننا أقولين إن ميشا لكيو وعيدنك عن كديك لها ومدى حصوقي هدي أن يكون عضو عيدن كاسين توجري dadka isaaqa uu dilay waxa tiradoodu waxay dhan tahay 115 qof oo isaaqa oo xaq darre lagu diray oo dad maata ah dumar iyo caruur iyo odayaal ah oo miyiga iska jooga taas
waxa lagu dilay meesha la yiraahdo Awaare Kamarooyan baa lagu dilay Dawacable baa lagu dilay Jiiqla lagu dilay Cadaad baa lagu dilay waxa lagu dilay Cilmi Xirsi waxa lagu dilay Jalaan Qayrta waxana ugu dambeysay Jaamac Dubbad halkaa waxa ka muuqda xabaalo waradeedkii labadii xabaalood ee dumarkii iyo carruurta iyagaan xabaalo loo qodin mid walba halkaa lagu aasay waxaa halkaa ka muuqda inankii yaraay 2 jirka ah hooyadii baaska la mariyay isagiina dhaawac yahay waxaa halkaa ka muuqda hantidii ummadda ee la baabiyay nimankii sidaa sameeyay ee hantidii ummadda meel kasta ay joogaan dukaanadoodii iyo gawaalidoodii iyo makhaayadahoodii baabi'iyey maalin kaliya iyo koo dowlad u shaqeeya dadkii sidaa loo xasuuqay wax allaale wax tacwiida iyo maga iyo wax loo soo qaaday midna ma jirin taasina waxay ujeeddo la doonayo in dadka dhulkooda lagaga qaado oo dad kale aad moodayso in lagu soo dejiyo wuxuu ahaa siyaasad qarsoon ayay hayd oo markaad eegto la doonayay in dadkaa isaaqa dowladda Itoobiya uu la dagaalamo xabad ku rido dabeedna ay noqoto dadkaa isaaqa in la baabi'iyo loona arko inay jabhad yihiin laakiin waa ummad xaashi cad dowladda Itoobiya ay u hayso inaanay maalinna caday ku fiirin waxaanu leenahay dadka Liu Police waa in la baabi'iyaa horaan ugu qornay Meel Sinaawi waxaan ugu qornay ninkii la oran jiray Haile Mariam Desalegn xafiis walba oo kilinka federaalka away taala intaasoo safaaradood London iyo Canada iyo Australia iyo Europe intaaba iyo qoraala ayaan u geeyay maantana waxaanu leenahay dadkaasi horta dowlad bay u shaqayn jireen dowladdii ayaanu ka doonaynaa magti iyo tacwiidii iyo kana waxaan doonaynaa in maxkamad la geeyo Amnesty International waxay dowladda Itoobiya u qortay in ciidanka la baabi'iyo oo ciidanku noqdo police iyo federaal waxa kaloo dowladda Itoobiya u qortay federaalka Human Rights Watch labadii 2013 waxa kale oo dowladda Itoobiya maanta Dr. Abiy uu hogaaminayo waxa uu qoray ninka la yiraahdo Dr. Niyuki oo ah ninka Amnesty International uga wakiila East Africa iyo Lakes waxa kale oo Dr. Abiy Ahmed arrinka isaguna u qoray oo u sheegay nin Dr. Adiso Gabri oo ah ninka human rights ka madaxa ee dalka Itoobiya waxaanu leenahay haddaanu nahay ummadda isaaq ee Itoobiya ee kilinka shanaad ciidanka Liu Police ka la yiraahdo dambiilayaal weeyaan waa in maxkamad la geeyaa ciidankaasna la baabi'iyaa dadka kilinka shanaad joogay Soomaaliyeed markii ninkii gacan ku dhiiglaa meesha ka tagay ummadaasi iyaga nabadgelyadooda gacanta ku haystay askar bay leeyihiin shaqaalay leeyihiin inta nin gacan ku dhiiglaa la keenayo dhulka kilinka shanaad oo shaqo loogu samaynayo ee dhaqankii bedelay ee khamriga keenaya ee wax walba keenaya ninkaasi waxaanu leenahay waa in dhulkii laga qaadaa sidaasaan dowladda Itoobiya ka dalbanaynaa madaxweynaha ku meelgaarka ee kilinka shanaad waayahay
waxaan idin sheegayaa idinna tusayaa dhammaantiinba barnaamijkan sheergareeya waxaan idin sheegayaa idinna tusayaa cagjar iyo ciidankiisa oo NLF iyo ogaadeen waxaanay samaysteen inaanay shaqaynayn waxaanay samaysteen inaanay shaqaynaynin marnaba shaqayn doonin shalay anoo keligay baan qaylinayo laha ka kacay ma jirto laakiin maanta dhammaanba bulshadaydu meel kastoo ay joogto waddan kastoo ay joogto iyo gobol kastoo ay joogto ilaa iyo koonaha ugu sheeyay Itoobiya ilaa iyo koonaha ugu sokeeyay Itoobiya waxay ku wada baraarugsan yihiin oo ay arkaan khatarta iyo dhibaatada ay leedahay arrintaas marnaba waxaanay aqbalaynin walaa oo NLF u bixiya walaa new police u bixiya walaa maamul deegaan u bixiya walaa waxa doontaan u bixiya waxay beelo ku shaqaystaan oo reer loogu duulo oo ciidan loo samaysto marnaba ma aqbalayaan waxaan arkaynay dagaaladii shalay tajaarsa lagu qaadayay ee militarigiinu uu la socday ee militarigiinu uu booyadii iyo ambulance iyo waxa weeyaan waxyaabihii dawladda Itoobiya ay u siisay dadka Soomaaliyeed inay maamulkooda ku dhistaan ama ku ilaashadaan ay ugu duulayeen beelaha baan arkay waxaan ogeyn dadka Soomaaliyeed ee kale ee meel walba jooga xasuuqyadii loo geystay iyo dhibaatadii loo geystay ilaa iyo iminkana aan xitaa albaabka loo furin oo la oran war dadkii la dhibaateeyay maxaa xala oo waxa weey arintoodii waxa weey laga geli karaa bal u fiirsada shiikhal waxay ahaayeen reerka dhibaatada ugu badan deegaanka loogu geystay balse wuxuu ka gubanayaa oo uu arkaa inay dhibaato tahay xariga inankoodii miskiinka ahaa la xidhay ee hebel ilay ayuu wuxuu arkaa inay dhibaato tahay oromaa qabsatay waa cadow Soomaaliye soo kaca na raaca nala dagaalama bal hadda eega waxa la inaga dhaadhicinaya buurta haye عليكم السلام ما في عنده كسكو في إعلان برنامج وكسر أنا waxaan oran lahaa warniyo horta Itoobiya waa garaxayis Soomaha iyaga ugu badan Soomaha ma fahmin anigu badnaan iyo yaraan midna ka hadlimayno laakiin go'aanka ay qaateen baan ka hadlaynaa Soomaan in lagu hambaliyeeyo Soomaalida kale ee dhibaataysan in ay qaataan garxayis muxuu ku hadlayno inanka Ilaahay muxuu ka yeersi ya dadku waa dadka weeyaan waa dad caqliga laga gumeystay inankii maalintii abeen baan inaan soo qabto inanka ilaa imika waan xasuustaa wallahi ma ilaaway ilaa markaan soo qabtay baa waxaan ku yiri walaal ma reer ogaadeen yaa tahay markaasuu yiri haa walaal reer ogaadeen yaa oo qoladaaduna waa qolamo markaasuu yiri ashraaf baan oo adigoo ashraaf oo Ilaahay qoladaada ashraaf ka dhigay ogaadeen iyo ku noqotay dodo السلام عليكم kadib go'aankan ay soo saareen reer Sheekh Isxaaq aad baan u taageerayaa waa Leo Police iyo ONLF waa laba group oo dhigyacab ah oo kolkay wax leynayaanna dee dagaara wata ay ku marmarsiyo nin kasta oo Leo Police ah waa dhigyacab weeyin Ilaahay ka go'ay oo ummadii deegaanka deganayd wiiqay weeyaan ilaa iyaga maxkamad la keenana wax hagaagaya ma jirto
liu boolice iyo ONLF waa isku mid weey labaduba waa dhigyacab ONLFna waxay ummad wiiqeen raggii laayeen way joogaan imika annaga mujaahidiin nooga dhigayaan iyagoo raamala ay noo soo galayaan waa dadkii ay laayeen waa in ay qirtaan oo maxkamad la soo taaga raggaas kuwan liu booliiska la yidhaahdana waa kuwa ka xun weey go'aanka ay soo saareen reer Sheekh Isxaaq aad baan u taageersanahay ilaa ragga maxkamad la keenana waxaan fariin u dirayaa deegaanka Soomaalida Itoobiya oo dhan ciday dooni ha ahaadaan reer Sheekh Isxaaq waan tahay nimankaana waa in maxkamad la keeno oo aan laga jamcinin wixii ay geysteen mar raggii dadkii ay dadkooga laayeen oo bay weliba hor imanayaan iyagiyo hubaysan caqliga halkee laga keenaa adduunyada caqli ka shaqaynaya maaha caqligaas kii aan shalay ilmihiis aan aabihii dilay een hooyadii dilay baan haddana u imanaya xagee laga dheeraa dheeshaas ogaadeenkuma waxay u haystaan inay ummadda kale ka caqli badan yihiin waxaasi wax shaqaynaya maaha